بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود المين وبعد نقدا ونسان كسر دودا وركينا جنالك غرفينتا qodobada ku daawada talo waxa ka mid noqonaya dawladda federaalka Soomaaliya iyo mucaaradka oo isku raaca doorashada dadweynaha iyo sidoo kale waxa ay ku daawada madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo gaaray dalkaasi Qatar xogta arrimaha wali la isku hayo kadib markii la isku raacay doorasho toos ah maxay tahay xogtaasi la isku raacay iyo waliba waxa la isku diidan yahay qodobadaas iyo qodobo kale ayaa daawada ku daawada daawada dub muuqaalkan ku soo gaaro subscribe share like comment daawashada daawatane waa aad ku mahadsan tahay aan soo qabto qodobka ugu horeeya madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa gaaray dalkaasi Qatar madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa gaaray magaalada Doha ee dalkaasi Qatar halkaas oo ay ku soo dhaweeyeen mas'uuliyiinta ka tirsan dawladda Qatar iyo waliba safiirada Soomaaliya ee dalkaasi jooga ujeedka safarka madaxweynaha Soomaaliya ayaa la xiriira ka qaybgalka aaskii amiirkii hore ee dalkaasi Qatar Sheekh Hamad bin Khalifa Al Thani oo axadii geeriyooday sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa la filayay inuu kulamo la yeesho madaxda Qatar oo ugu horeeyo amiirka dalkaasi Qatar Sheekh Tamim bin Hamad Al Thani oo ugu tacsiin doono geeridii amiirkii hore Doha ayaa sidoo kale waxa gaaray madax kale iyo wufuud kala duwan oo ka kala socda wadamada caalamka oo ay ka mid yihiin Sacuudi Arabiya, Sultanka Imaaraadka Carabta, Bahrain, Kuwait, Oman, Iraq, Syria, Pakistan, Ethiopia, Kazakhstan iyo waliba Rwanda, Lebanon iyo Libya dhammaan wufuudaasi caalamiga ah ayaa dawladda iyo waliba shacabka Qatar ay uga tacsiin doonaan geeridii amiirkii hore Sheekh Hamad bin Khalifa Al Thani ayaa Qatar hogaaminayay intii u dhaxaysay sanadkii 1995 ilaa 2013 intii u dhaxaysay uu talada hayay waxa uu hormuud ka noqday isbedelada waaweyn ee dalkaasi ka hirgelinta sare oo ay ka mid yihiin salawada Qatar iyo waliba gobolada caalamka sanadkii 2013 ayuu Sheekh Hamad bin Salman Al Thani oo iskiisa xilka ugu wareegay wiilkiisa Amiir Tamim bin Hamad Al Thani dhanka kale dawladda Qatar ayaa waxay ku dhawaaqday 4 maalmood oo baroordi qaran ah oo ka bilaabanaysa shalay iyadoo calanka dalkaasi hoos loo dhigayo dawladda ayaa hadda waxa ay wada qabanqaabada aaska rasmiga ah ee loo sameeyo amiirkii hore si kastaba dawladda Qatar ayaa ka mid ah dalalka Carabta ee taageerada kala duwan siiyo dawladda federaalka Soomaaliya taas oo keentay in Soomaaliya ay hoos u dhigto calanka muddo 3 cisho ah kadib amar ka soo baxay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya dhanka kale dawladda federaalka Soomaaliya iyo mucaaradka ayaa soo raacay doorasho dadweyne maxaa kale oo ka soo baxay oo la isku hayaa dawladda federaalka Soomaaliya iyo garabyada mucaaradka ayaa haatanba ku midoobay doorashada qof iyo codka kadib wada hadallo xasaasi ah oo ay gaareen oo ay garwadeen ka tahay beesha caalamka oo yeeshana dhinacyadaasi dawladda federaalka Soomaaliya iyo labada garab oo mucaaradka ayaa isku raacay in Soomaaliya ay u gudubto doorashada tooska ah oo ku saleysan nidaamka asxaabta siyaasiyiinta taasoo lagu bedelayo hanaankii doorashooyinka badnaa ee dalka lagu dhaqmi jiray sanadihii la soo dhaafay dhinacyada ayaa la sheegay in isla qaateen in guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka uu noqdo hay'adda mas'uulka ka ah maamulka iyo waliba qabashada doorashada iyadoo la raacayo hanaanka sharciyada oo waafaqsan doorashada qof iyo codka ah hase yeeshee golaha mustaqbalka Soomaaliya ayaa wali waxa uu qabaa aragtida ka duwan tan ay isla qaateen dawladda federaalka Soomaaliya iyo waliba labada garab ee mucaaradka inkastoo uu taageersan yahay doorashada dadweynaha golaha mustaqbalka Soomaaliya ayaa soo jeeday in la qabto waxa ugu yeeray doorasho qof iyo cod isla markaana la dhiso guddi doorasho oo laba heer ah kaas oo ay si wada jir ah uga qayb qaadanayaan dawladda federaalka Soomaaliya iyo waliba dawlad goboleedyada xubnaha dawladda federaalka Soomaaliya ila ku dhow wada hadaladani ayaa sheegaya in qodobada kale ee wali laga doodayo ay ka mid yihiin tirada goobaha lagu qabanayo doorashada qaabka loo ilaalinayo nidaamka awood qaybsiga ee 4.5 inta lagu jiro marxaladaha kala guurka iyo waliba arrimo kale oo farsamo oo la xiriira hirgelinta doorashada balse si guud muranka ma taagna in doorashadu noqoto mid dadweyne sida ay xogo muujinayaan qodobadaasi looma arko kuwa caqabad weyn ku noqonaya ama ku noqon kara heshiiska guud waxaana la filayaa in dhinacyadu ay si fudud u gaaraan is-afgarad marka la soo gabagabeeyo wadahadallada socda wadahadaladana waxay qayb ka yihiin dadaalada lagu doonayo in lagu gaaro heshiis siyaasadeed oo balaaran kaas oo saldhig u noqonaya hanaanka doorashooyinka dalka tani ayaa waxay ku soo aadaysaa xilli Soomaaliya ay isku diyaarinayso go'aano muhiim ah oo ah geedi socodka dimuqraadiyadeed dhismaha hay'adaha dawliga iyo waliba qabashada doorashada tooska ah inkastoo ay wali jiraan aragtiyo kala duwan qabashada doorashada qaabka loo dhisay waliba guddiga doorashooyinka iyo waliba habraacyada lagu maamulayo doorashada haddana xogaha kale leelaya waxay muujinayaan in inta badan dhinacyada siyaasadeed ay isku raacsan yihiin muhiimadda ay leedahay in Soomaaliya dawladda federaalka Soomaaliya waliba dhinacyada mucaaradka ayaa si guud
ugu midaysan in dalka loo jiheeyo doorasho toos ah lagana gudbo doorashadii dadbaneed oo muddo dheer lagu soo dhaqmayay. Inkastoo ay weli socdaan wadahadallada xasaasiga ku saabsan qaabka loo wajahayo doorashooyinka qof iyo codka ah, haddana waxaa taagan khilaaf siyaasadeed iyo weliba aragtiyo isdiidan oo ku saabsan hanaanka loo marayo hirgelinta doorashada. Guddoomiyihii hore guddiga doorashooyinka qaranka Xaliimo Yarey ayaa wareysi siisay Somali Cable TV ayaa sheegtay in go'aanka gaarista nooca doorashada aysan adkayn, balse caqabada dhabta ah ay tahay sida loo hirgelinayo. Sidoo kale waxa ay hoosta ka xariiqday in hanaanka loo dhisayo geedi socodka doorashada uu markii horeba lahaa khaladaad, kuwaasoo sida ay sheegtay doorashada iyo weliba khilaafka siyaasadeed uu si dadban u socdo. In go'aan laga gaaro doorashada la qabanayo waa iska sahal, waxay tahay wax micno weyn kuma fadhido, laakiin waxaa la gafay doorashada sidii loo hirgelinayo, sida noqon doonto iyo weliba xaggee loo marayaa, ayay tiri Xaliimo Yarey. Guddoomiyihii hore guddiga doorashada oo la weydiiyey maxaa soo celin kara muranada doorashada ayaa waxay ku jawaabtay aasaaska ayaa khalad ah, haddii aasaaska uuna saxnayn muran fara badan ayaa imanaya. Hadalkan ayaa kusoo aadaya xilli ay haatan Soomaaliya ay isku diyaarinayso go'aano muhiim ah oo geedi socodka dimuqraadiyadeed, dhismaha hay'adaha dawliga iyo weliba qabashada doorashada dadweynaha. Inkastoo weli ay jiraan aragtiyo kala duwan oo ku saabsan qaabka loo dhisayo guddiga doorashooyinka iyo weliba habraaca lagu maamulayo doorashada, haddana xogaha la helaya ayaa waxay muujinayaan in inta badan dhinacyada siyaasadda isku raacsan yihiin muhiimadda ay leedahay in Soomaaliya ay u gudubto doorasho qof iyo cod ah. Daawadayaal, inta ayaan kusoo koobaya wararkeena. Daawada hadduu muuqaalkan kusoo gaaro subscribe, share, like, comment daawashada aad daawatane waad ku mahadsantahay.